السلام عليكم. beri dhaweyd baan safar aan ku tegay Soomaaliya ayaa waxaan kula kulmay nin yar oo dhalinyaro oo runtii aad u daayar oo da'aadii labaatanaadka markaa hadda ku jira, laakiin dadaal badan oo runtii aan aad uga helay. maqaayad aan runtii qaxwaha u doonan jiray buu ninkaasi ka shaqayn jiray. waxaan ka helay dabcigiisa iyo deganaantiisa iyo siduu dadku ugu shaqaynayo, yacni xataa dadka qaar dee dabciga waa iska taqaan. si kastoo loola hadla ninkaasi marar badan baa maqaayadaas ku noqnoqday. ninkaas iska degan yahay, aad buu degan yahay, qofku wuxuu ku leeyahay haye walaal iyo dee da'du ku jiro oo runtii aan aad uga helay. da'daas marka lagu jiro qofku xoogaa dabciyan uu yara xoogaa kulul yahay, dadka wax maqlana ma aha xilliga teenage-ka, laakiin waxaan aad uga helay deganaantiisa iyo qaab shaqadiisa, adeegiisa markastana inta badan isaga ay adeegi jiro runtii. waan isbaranay ninka odayga ah, hadduu muuqaalkan daawadana runtii waxaan leeyahay waan u hambalyaynayaa, aad baan ugu hambalyaynayaa. ilaahayna amuurihiisa iyo higsigiisa allaha u hagaajiyo. nin aad u higsi badan oo runtii meel fog waxuu ka arka wey. barashadeennii baa waxaan weydiiyey su-aal ah, maxaan kugu dhaliyey nin daayar baa tahay inaad maqaaxida aad ka shaqayso weliba waiter noqotid. waiternimadu waa shaqooyinka ugu adag ee laga shaqeeyo runtii. wuxuu igu yidhi gelinka hore jaamacad baan dhigtaa, waan tagaa, marka waqtiga ii soo haraa aad u badan oo gelinka dambe oo dhan wax ma qabto ilaa fiidkii. deedna markaan fikiray oo aan arkay dee qoyskayga dhaqaalaha ay iga bixinayaan inaan dee wax badan inaan wax ku barto waqtigii badnaana aan wax ku soo celinaynin, waxaan is iraa armay bara runtii habboon tahaba inaad qayb ka qaadatid qarashka jaamacadda lagaaga bixinaya inaad ugu laftaada wax soo celisid. saasaa shaqadii ugu kaliftay inaan macnaha aan galo. baahi ma ahayn dabcan, laakiin waqtiga faraha badan leh buu isleeyahay ka faa'iidayso. shaqo kale aan ka shaqeeyey buu yidhi oo dhowr bilood ah, waan ka heli waayey, kadibna tan baan markii dambe aan helay oo runtii fursaddan baa soo baxday. fursaddanna waxay ii noqotay buu yidhi mid aan runtii aad ugu raaxaysto oo aan jeclaysanayaa shaqada inaan ka shaqeeyo. yacni runtii cajiib bay ila noqotay. nin daayar hadda uun xilligii jaamacadda ku jiro sanadkiisii labaad meelaha oo gelinka dambe ka fikiraya inuu wax soo saar u yeesho oo waqtigiisana ka faa'iidaysto, at the same time income iyo runtii waxa jaamacadda qarashka ku baxaya ee nololeed iyo wuxuu u baahan yahay inuu halkaa kala soo baxo. dhiirigelin weyn bay ii noqotay runtii. dadka qaar markaa la sheekaysatana sheekooyin fara badan oo noocaas oo kale kuu sheegayaan. marka waxaa cajiib ah wax yacni aan su-aal weliba aan ku celiya oo kale ah, goormaad yacnihii wax akhriskaaga iyo researchkaaga iyo waxyaalaha aad samaysataa. wuxuu yidhi waqtigu iska fara badan yahay. aroortii hore markaa 5 soo kacdo salaas waxaad tukatid, salaada kuma noqon kartiba, wixii ka dambeeya kalaas waxbaa ku sugayo. marka waqti aan wax ku akhristana waan helaa, waqti aan ku nasto waan helaa. welina waxaan dareemayaa buu yidhi in waqti fara badan oo kale uu ii soo haro. marka intaan maqaayadii meel iska fadhin lahaayo waqtigaas aan meel ku dayici lahaa, tanaa ii soo baxday runtiina waan ku faraxsanay inaan barto. bal qiyaas meeqa qof oo dhalinyaro ah oo dee intay wax baranaya iska daayay, meeqa iyagoo camal la waxba haynin maqaayad iska fadhiya, hooyadood soo biila, hooyadood iyo aabahood iyo walaaladood ay biil soo siiyaan, aan waxna kugu soo biiranayn naftiisa, bulshadiisa iyo qoyskiisaba. qofka waxbaba ku tirsanayn, waxbaba zero. marka dhalinyarada runtii wuxuu ii noqday dhiirigelin ah in dhalinyarada ay ku baraarugaan dee isagu waxba uu baranayaa, waxna wuu soo saarayaa. intaad meel iska fadhiyi lahayd bal ugu yaraan inaad bal wuxuun barato qaabka xataa meheradaha looga shaqeeyo iyo maqaayadaha ama dukaamada iyo wax loo shaqeeyo, qaabka xun loo qabto. waxaad arkaysaa qof baa shaqo raadinaya, meel buu imanayaa, shaqo raadis weeye, inuu wax qabtuu rabaa, laakiinse ma garanayo haba yaraatee si qof loola hadlo, ma garanayo sida waxa oo yacni laga shaqeynaya. xataa adduunyadana dee tababaraa loo galaa, wax kaleba iska daayay. musqulaha tababaraa loo galaa, shahaadooyinna waa lagu qaataa. bal adigu ka sheekee, hadna adoo iska fadhiya intaad qunyar iska soo baxdaad leedahay afku iyo waxa lagu guro. waa nasiib daro runtii. marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada runtii iyagoo wax baranaya shaqeeya, dadkooda iyo bulshadooda iyo qoyskooda wax kusoo kordhiyay naftoodaba. inta ku haminaysana waxaan leeyahay runtii dadaal wacan. asalaamu calaykum waraxmatullah.